waxaa xarunta madaxtooyada ka qabsoomay kulan ay yeesheen mas-uuliyiinta sare ee fulinta bayaanka xaaladda degdega ah ee uu dalku ku jiro waxaana shurgudoominayay madaxweynaha dowladda deegaanka soomaalida mudane mustafe moxamed cumar ahna guddoomiyaha guddiga kulankani ayaa lagaga wada xaajooday xaaladda guud ee nabadgelyada dalka iyo ta deegaanka sida oo kalena layskula dardaarmay xoojinta la dagaalanka argagixisada iyo cid kasta oo lid ku ah nabadgelyada shacabka mudane mubashir debed raage hogaanka xafiiska nabadgelyada dowladda deegaanka soomaalida oo kulankani nooga warbixinayay ayaa waxa uu yidhi shacabku waxa uu haystaa ciidan sugi kara amniga gudaha iyo midka xuduudahaba waxaana kulankani la iskula qaatay xoojinta amniga guud ee shacabka bismillahi raxmaan raxiim allahuma salli calaa nabiyina maxamed shirkan maanta ujeedadiisa iyo hadafkiisu wuxuu ahaa sidii loo sugi lahaa loona xaqiijin lahaa maaragtay nabadgelyada deegaanka sida caadada aad la socoto sida caadiga ahayd ee idinkuba la socotaan waddanku wuxuu ku jiraa xaalad degdeg ah xaaladda degdegtina waxay qasbaysaa in security councilka ama guddida nabadgelyada ee deegaanku ay maaragtay mar ay xaalad degdega jirto iyo mar ayna jirin labadaba ay si joogto ah u kulanto mararka qaarkoodna ay shir degdega ay qabsan karaan markaa kani wuxuu ka mid ahaa shirarkii caadiga ahaa waxaa loogu talagalay markaa uu hadafku ahaa inaan ka wada hadalno sidii xuduudaha ballaaran ee uu deegaankeenu leeyahay nabadgelyadiisa loo sugi lahaa sidii maaragtay ciidanka deegaanka ee gaarka ah iyo maleeshiyaadka iyo maaragtay booliska deegaanku ay u wada shaqayn lahayn hawshaas maaragtay gurmad joogto ah oo isku mid ah oo isku hadafa ay uga maaragtay ay uga wada shaqayn lahaayeen waxaa looga dan lahaa in qaabkii noocaas ah iyo hanaankii isku xidhi lahaa isna maaragtay in la hanaaniyo sidee baa loo hanaaninaya waxaa loo hanaaninayaa waxaa jira guddiyada xaaladda degdega ee ay leeyihiin koonsalada ama maamul magaalooyinku waxaa jirta guddiyada xaaladda degdega ah ee ay leeyihiin maaragtay degmooyinka iyo gobolladu kuwaas maaragtay sidii ay amarka u kala qaadan lahaayeen sidii maaragtay go'aamada heer deegaan loo qaato hoos loogu dhaadhicin lahaa marka ujeeddada iyo hadafku noocaasu ahaa midda koowaad go'aamada hadda ka soo baxayna waa in maaragtay maleeshiyaadku ay degmooyinka maaragtay xuduudaha ku yaala ay fiiro gaara ay sameeyaan maanta laga bilaabo oo haddii ay jiraan hubab halkaa ka soo gelaya haddii uu jiro cid nabadgelyo rabto maaragtay inay carqalad geliso in maaragtay halkaas iyaguna maaragtay ay ku xakameeyaan oo ay hawshoodii maaragtay dardar geliyaan midda labaad waxa weeyaan gobollada aynu jaarka nahay sida deegaanka canfarta deegaanka maaragtay oromada deegaamadan kale ee maaragtay aynu xuduudda la wadaagno ee Itoobiya ah ciddii maaragtay aan hadafka dawladda aan taageersanayn ee rabto inay meelahaas maaragtay carqalad iyo dhibaatooyin ka samayso in laga digtoonaado oo meelaha maaragtay isku dhacyadu ka jiraan ee ay rabaan inay ka faa'iideystaan maaragtay laga digtoonaado oo la soo jeedo oo maaragtay ay noqoto in laamihii dawliga ee meesha jira ay maaragtay si adag ay u shaqeeyaan hawsha saddexaad maaragtay iyaduna meesha la isla gorfeeyey la isla qaatay waxa weeyaan in meelaha qaarkood maaragtay deegaanka xasaasiyadii ay ka taagan tahay in iyadana maaragtay sidii ugu dhaqsaha badnayd loo xaliyo oo iyadna maaragtay odayaashii deegaanka iyo xukuumaddii iyo maamuladii gobollada ee meesha jira dhammaantood ay ka howlgalaan midda kale ee iyadna maaragtay la isla qaatay waxa weeyaan in maaragtay laamaha amniga ee gobollada aynu jaar ka nahay ee Soomaaliya Somaliland Puntland meelahaas oo dhan iyagana maaragtay shirarkii joogtada ahaa ee hadda ka hor jiray la soo celiyo oo maaragtay arrintaana maaragtay wax degdeg laga qabto dawladda qorshayaal ka soo saarto marka guud ahaan isku soo duub hadafka iyo ujeedadu waxa weeyaan midii guud ee ahayd in guddiga amniga deegaanku ay sidiisaba ay shaqeyso midii labaad ee iyadna ahayd xaaladdan degdega ee waddanka in lagu kala xog qaato lagu kala warqaato go'aamana laga soo saaro wixii intaa ka baxsan waa wax maaragtay laamaha amniga u khaas ah oo iyagu maaragtay ka howlgeli doonaan haddii maaragtay meelaha qaarkood ay jiraan ururo maaragtay aan nabadda ogolayn oo isla waddanka maaragtay xaaladdu wuxuu ku jiraa xasaasi ee ka faa'iideysto oo hadda aan soo hanqaltaagi jirin ay dhacdo inay soo hanqaltaagaan haddii ay jiraan shakhsiyaad meelaha maaragtay deegaanada jaarka oo kale iyo intay ku dhuumanayaan isla waddanku maaragtay wuu kala tegayaa deegaankii maaragtay hadda meel xun buu jiraa in maaragtay hawlo maaragtay wax ku oola laga qabto oo ay xukuumaddu maaragtay soo jeedo taasina maaragtay howlgalkeedii
xukuumaddu way ku jirtaa waana mataqaanaa waana la arki doonaa insha allah marka howlahaasoo guud buu ahaa nabadda deegaankana ciidan iyo boolis iyo dowlad degan oo maanta waddanka ugu degan oo wax ka qaban karta oo laysku hadlayn karo shacabku aamini karaan ayaa meesha joogta taasaan markaas sii xoojinaynaa waana sii wadaynaa shaqaalaha qorshayaasheedana waan usoo bandhigi doonaa ciddii maaragtay u baahan